I don't care I don't mind hore kuu sheegay if you are محافظ معارض قفاعد in adeerta hadal weydii bal doctor hadal ayadaa kuu sheegayso wax isbedelay dalka. hold on ma adaa ku weydiinaa because quality-gii aaway istaaganahay hooshooda lay ku jiraan marmar oo markin oo alcadaala aan ku arkayna isugu hadla ay la arki jirnay alxamdulilah wanoo bilaabatay hadaato caataa wuxuu nagu wargeliyey is gonna come more and more markino waxaanoo kale in maxaa la wasiiro la wareysto maaragtay waan wax fiican because wada xisaabtan waaye dadka soomaaliyeedna in ay arkaan maxaa qabsamay maxaa laga yareeyay mida kale qofka markuu yahay journalist waxaa fiican hal subject inuu ku takhasuuso oo wax kasta ka sheegi karo. I'm very disappointed you see because wixii haddaa weydiisa dastuurka kale haddaa ka hadashid oo ninkan dastuurkin aada fahansaneen qodobada si fiican aada u fahansaneen dee wax lagaala sheega wax kale ma kala taqaanin su-aalo fiican oo anaga arabna unaga wada dhex guuxaayo maysan ka sheegin meeshaas ayagaa meeshaas ku qabsaday ay yacni isbarajeenayo iyo su-aalo oo ka baxsan xushmadda iyo qiimaha markinoo yani umay kulul oo kuwa meelaha aan ka maqalno kale adiga meeshaa joogtay markinoo ma tigi kartid iyo blaablaadaasiid yani mucjisadaas oo kale mugta inay ku xadgudbaan maxaa la barnaamijka ku-xigeenka sharaftiisa markinoo yani waxyaabaha oo journalistnimada ku fiicneen waaye laakiin aniga waxaan aaminsanahay yani barnaamijka ku-xigeenka saalax wuxuu ahay no only inuu hadal yaqaan ahay haddana wuxuu ahay nin diyaarsan laakiin ma helin dadkii oo challenge garee lahay oo su-aalo adag weydiila weli aadkan xasan dhahay aadaad disappointed uga noqday waxaas dhahay odagaas wax badan oo yaqaanaa mugta yani chaos waa kuwii jidadka la taataagnaa maxaa tiri yani ayaan dhexda fideoga wasiirkii oo markin isagoo qumbo meel ka gadanayo ka cabaayay iyo babayga u tageen raadiyeen soo wareysteen aan dhahay marka yani waxaasoo kale waa mucjiso waa mugta marka waxaa aniga hata arkay soomaaliya ma haysato markinoo prest oo markinoo trained oo markinoo levelka oo la rabo wax u challenge gareyn karaan fact waa taas horta way noo caddaata cawada laakiin waxaa laga yaabaa next markinoo in wasiirka kale oo hadda caata ay keeni doonaan horta caataa shaqadaan qabsaday cabdiraxmaan oo saaxiibkaa shaqadaan qabsaday marka wuxuu yidhi way sii soconaysaa sheekadan marka waxaa isleeyahay kolley waxbay ka baran doonaan kuwa tayo leh malaha way soo hor fadhiisan doonaan mise wax kale oo justification oo ku bixinaysaa jiro su-aashaas oo dhan maqli jirtay waa u gambiyey kasb uu siiwo intuu taataabtay oo xitaa tuutuujiyo waxba kama sheegin oo ka carar waxaa la weydiiyey cabdiraxmaan ciro ma u hambalyeynaysaa maadaama ay tahay deegaan doorashada meesha ka timaaday maamulka aad matalaadiisa meeshii magacaad ku joogtay ay tahay ma u hambalyeynaysaa wuxuu garan waayey qofka uu yahay bosishinku xilligu makii shanaada mise makii lixaada u dhaha maba ogaba midka uu yahaba inuu shanaad yahay inuu lixaad yahayba risaaru maba ogaba muxuu hambalyayaa marka dhibaato haga ka jirto maxaa ugu anything I think that was intentional waxaa fiican ifan xataa aan u cuudaarayna xitaa sida u cuudaarayna qofku waa weydiin karaa ra-iisul wasaarahan toob maxay weydiin karaan wadajirka Soomaaliya xukuumadda hadda jirto goon isku taag maxaa ugu galay goon istaag lagama hadlaa dhegeyso ra-iisul wasaaruhu wuxuu ka mid yahay tiro xildhibaana ah xukuumadda ka mid ah dowladda ka mid ah matalaada Somaliland waxa la dhaha ku jooga meesha Somaliland ma dowladda Soomaaliya u shaqeeya waa wan second walaal horta ku sheega meesha hadda systemka waxa ku joogan ku sheegna anaga wax jacayl ma ka hadlay ognaa fiiri qabiilan ku joognaa wan second walaal horta wan second qabiil iyo wax rabnaan ku joognay waa hadlaysa horta aan hadla daa su'aal weydiinayna dhamay meesha u socdo ka sifaan fiiri meesha waxa ku qoran inay leeyihiin special needs dadka reer Somaliland special needs kaasna waxaa waaye taladii dadkii kala dhaxaysay ama ciddii maamulku haysay inaysan aaminsaneen gobolka Banaadir iyo meelaha kale lagu soo doortay ku imaadaan taas waan isla fahmayna ma fahanta qofkuna ceeb ma ahan kursiga 4.5 ka yaalo waa hadda su'aal weydiinaysa weydii walaal aan fahmi karo baa ma kana ku furat finance isugu waxay daasho dishonesty waa tan taliyaha booliska Diana
ya half of gaalkacay sawirkiisa ku dhegan waxay leeyahay sare guud taliye waxbuu ka bedeli karaa waxbuu ka goosan karaa waxbuu ka taagi karaa qof wixii ku sheegi karaa half of gaalkacay ma bedeli karin wajiisa abada haafkaas haafkee waay calankiisa ka taagan yahay baliishe calankiisa ka taagana dhinacuu ka taagan yahay calankiisa galmudug ka tirsan ya koonfurta okay gaalkacay galmudug okay waa kula fahmay firi markuu Ilo- dhinac oo Puntland meeshaan ka hadlaayo meeshaan ka hadlaayo dishonest waxaan waa wax mucaaradnimadiina kor u qaadayni waa aniga mucaarad maahay walaal su-aasha haddaan fahmay waa fahmay sugan kuu sheegay waxaa fiican xogaa in la is dhegeysan karo ma waqti dheer qaatay ku dhegeysanaynay horta waxaan ka hadlaynaa waxa waaye laba wax oo kaafi kala dheeriya oo isku xitaa isku jiha iyo isku qaarad ahayn firi ninkan Diyaano waa taliye maamulka federaalka ahi goboladu ka tirsan yahay federaalka kamid ah doorasho ka jirto xildhibaanadiisa matalaan wasiiradiisa matalaan dawladii aaminsan meeshii joogaan xildhibaanka matalaya iyo wasiirka matalaya dadka matalaya gobol iyo degmo iyo meel ay ka soo doortaan ay leeyihiin soo waxaan ka hadlaynaa anaga taas ma aha wax jiro firi hadduu ya Soomaaliya ma ka tirsano waxaa ka hadlaynaa wax islama socono hadda walaal waxaa ma fahmin islama socon karnaa sug halaw waxaan ka hadlaynaa dad ila soconaynin marka ay qasin marka hadalkeeda waxaan maleynayaa 30 minutes ama 40 minutes waa hadashay marka waa kugu filantaa qabaa inta daar aan ku kala raadada rabin marka aan waqtiga dhiman xagga iska dhaaf waxaan ka hadlaynaa marka niyo meesha waxa ka jiray Cabdiraxmaan ama Reesaaruhu wuxuu waday islaak inaan kacaankii qayb kamid ah noolnahay hadeer oo hawlihii moogid kacaanku sameyn jiray oo ahaa saanaan sameynay 400 oo qof aan meel jasiirada doon uga tirnay 1 milyan oo caruur ah iskuul la'aan oo isku da'di iskuul gaarteen iskuul gaarin something like that yes waa waxa la fiican in la sheego wax fiican in la qabto wax fiican lagu haminayo ba muhiimadu ma ahan 400 oo qof oo daadad u imaaday dawladii inay dhahdo meel baa gabar ooynaysa inta ii timaaday ii sheegto ka qaadno daad kureyna war waxaas wax ka badan ba dalkan iyo dadkan u baahan in loo qabto waxna loo sameeyo soo intaas lagu kaamban gareeyana waa ila yartaan u qabaa wax ka weyn lagu kaamban gareeyayo ka fara badan su'aal marka waxaa jirtay something like that meesha waxa ka muuqanaysay laba horta khaladaad si guud mid koobaad xasan Caddo oo ahaa ninkii meesha dhexdhexaadinta ahaa inuusan su'aalaha qaarkoodna aysan follow up ku sameeyeen Reesaaruhu si loo weydiiyo si ku adkeynaynin ama haddii ay tahay in la toosiyo qofka weydiinayo si ethics oo uu weydiiyay ay ka khaldan tahay inuu asagu toosin karo dhigi karo saanaysan ka dhig waa qaba qofka laftirkiisa in wax la iska saxo iyo Reesaaruhu waxa Reesaaru ku-xigeenka waxa ugu weyn ka maqan inuusan note lahayn laba wariye marka wax weydiiyaan mid buu xasuusanaya tiis kan kalena wuxuu ku ahaa ada ii xasuusin doonta ii hay su'aalahaas ii sahay adaan kugu imaan doona u dhahayay soo note meesha ma jirinin note-kaas inaysan jirin wax fara badan oo qalqalaha jawaabihi ka imaanaya ama qofka inuusan ku qanacsanayn wariyaasha laftirkooda markay weydiinayeen raas Kamboni wixii ka dhacay oo Reesaaruhu sheegay waxa ahayd su'aal la mid ah meeshaas ka timaado oo dhahayso nin kamid ah wasiirada dawladda Kenya baa wuxuu clear gareeyay ama cadeeyay inay u tahay Jubaland meel ay ayagu isku ilaalinayaan oo tahay Kenya inay u tahay safeguarding u sameynayso ayaga ay tahay danahooda inay ka fushanayaan dalka noocaas ahna adaa Reesaarihiisa xilkii kamid oo joogo maxaad kaga jawaabaysaa inaysan meesha dhamayd ba ka imaan wariyaashii joogay ama cidii kale oo su'aalaha meesha dhexdhexaadinta inaysan ka imaan su'aal cad oo waxay ahayd waqtigeeda imaanaysay dadku u baahnayeen dhagtu u taagnayd wax weyn oo ahayd in ilaa intaan laga aamusnaanin ay ku habboonad inay tahay bay ahayd inaysan imaanin meesha ka imaanin waxaa soo haray waxay kaleeto oo Reesaaru ku-xigeenku sheegay dayax gamceed baan diraynaa iyo saanaan sameynaynaa iyo waxyaabahaas oo dhan way ku fiicnaan lahayd dal iyo dad is haysto wada socdo isfahansan waxay ka wada hadlayaan iyo waxay ka sameynayaan xasilooni siyaasadeed ku jiro sidaas oo si lamid ah uma baahnaan lahaynba in xilligan dayax gamceed baan diraynaa iyo dhulkan gariirinayna wax fara badan oo Soomaali maanta uu ku soo siyaadinayo oo baahay oo anaga hadda naga fujinayo yani meesha iga muuqan su'aalo habaysan oo organizer loo wada isagaba sheegayba wuxuu yiri waxtaas ma qaadan karaan su'aalo xataa moogtahay have to be related inay tahay kaafi kala dheeri bay ahayd marka okay that is dhaxalka anigu meeshaan ka helay samawada meeshaan ka helay waa markuu mid baa su'aal weydiiyey markaasuu yiri
the سؤال كو جوابي man the so يعني are you not paying attention to the answer I'm giving you that I liked that boldness هذا أنا وجهله مركو كيري نيكي وريها I don't know if you were listening for me I like some of it and after listening to the questions مركو overall it was a good atmosphere in without any fear without any restrictions to the question you can ask glowing ki hore oo la dhigi jiray wax ka duwan inuu ahaa horta waa soo dhaweeyay markii ugu horeysa overall kayga ku siiyay that they could ask him whatever they wanted but now that we've listened extensively to the questions anigu waxaan dhigi karaa waa actually he is among the few politicians who can actually dance around the question and actually answer you but not answer you at the same time sharciga ayaga yaqaan meelaha lagu dooranayo su'aasha Somaliland waxay ahayd unrelated ama si kale ugu yiraahdo wariyaa tahay sharciyadii iyo wixii laga soo waxaad weydiinayso wixii soo qoran bayaan adiga as wariya inaad soo akhrisaad fiicnaa u dhahay لكن أنا war dowlado sharciga qoran inuu qofku reiterate kugu sameeyo marka uu ku yiraahdo waa la basta ani wariyaasha yuuban siiyaba waataan ku weydiinay aday professional wariyaal aday newcomers laakiin asaga waa journalistayaal badankood waxa wax soo baray abwaanageeya soo baray jilibuna joogaa marka they cannot get their money back exactly but asaga waxay chance u noqotay in ay soo shax bixiyaan politician nimadiisa I don't know Somalidu they either used was waxta u kaadada dadka ana waxa isma wacan dalmar ku soo Axmed aad ku xig Cabdiraxmaan Sawda saxaabad baan ku salaamay adiga khiyaarta kaleba runtii dood aad u wanaagsan baad inoo soo bandhigtay oo wasaaraha reactionkii su'aalihii la weydiinayay warbixintiisii horta wasaaraha waan ku-xigeenka Saalax Jaamac anigu sidaad adiguba sheegtay grade baa dabcan la siinayay waxaan anigu jawaabihii uu bixinayay waxaan u badnaayeen su'aalo ku salaysan best experience-ga uu leeyahay systemka dawladda ay ku dhex jiray sidoo sheegayna 11 sano u dambeeyay dawladdu ku dhex jiray oo wasiirka dastuurku ahaa oo marba wasiirka dastuurku ahaa la taliya sare mar ahaa inta ka horeysana UNDP waxa UN-ka xaslo shaqeyn jiray khaasatan UNDP marka he knows systemka oo dhan buu la socday oo su'aalo ka jawaabayay badankoodu wuxuu ku dhisayay experience-ga iyo xogta uu hayay laakiin runtii waxaan anigu isleeyahay confusionku wuxuu ka jiraa mawduuca uu ka hadlayay ama uu yiri waan soo bandhigayaa ma ahayn mawduuc bas ma arrimaha gudaha iyo amniga iyo xasilinta ma arrimaha dibadda soo waxaas marka waxay keeneen confusion ah isaguna in uu deesuur rabo open isaga jawaabo wariyaashuna ay waxay rabaan weydiiyaan marka taas marka waxaan u leeyahay hadda doodihiina marka xitaa dhageysanayay Cabdiraxmaan Sawda waxaad lahayd confusion baa jiray so confusion wuxuu ka imanayay mawduuca uu rabay inuu ka hadlo ayaan ahay mawduuca yiman